kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 12 bisha 7 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah maxaa ka jira in dawladda federaalka tanaasul ka sameynayso muranka badda Kenya xog muhiim uu bixiyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaan idin soo gudbin doonaa golaha wasiirada oo si qoto dheer uga hadlay siyaasadda difaaca qaranka iyo wasiir qorshe la yaab leh la hortagay golaha wasiirada gudoomiye Yariso oo u digay odayaasha daba carara dadka falal dambiyeedyada lagu soo qabto ee ay xukumaan maxkamadaha iyo garsoorka 15 muwaadin oo u dhashay dalka Kenya oo lagu adoonsado Soomaaliya sirdoonka Soomaaliya oo gacanta ku dhigay xubno Daacish oo qorshe halis ah ka maleegay magaalada Muqdisho iyo Kenya oo arin halis ah oo ay Soomaali ku leedeen ka bilowday xuduudda intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan maxaa ka jira in dawladda federaalka ee Soomaaliya tanaasul ka sameynayso muranka badda Kenya xildhibaan Cabduqaadir Cusubla Cali oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu jiro tuhun in dawladda federaalka lagu cadaadinayo inay tanaasul ka sameyso arinta badda ee hortaala maxkamadda caalamiga ee ICJ maalmahan waxaan maqlaynay in safaarada iyo dalal ay dawladda ku riixayaan in kiiska badda lagu dhameeyo maxkamadda banaankeeda ayuu yiri xildhibaan Cabduqaadir Cusuble xildhibaanka ayaa ku taliyay madaxda dawladda inaysan ku bedelan qadiyada Soomaaliyeed arimaha maamul goboleedyada ka ma ogolaanayna in maamul goboleedyada loo gacan togaaleeyo awgeed uu madaxweyne Farmaajo u burburiyo qadiyada Soomaaliyeed ayuu sii raaciyay hadalkiisa xildhibaan Cusuble dhinaca kalena golaha wasiirada ayaa si qoto dheer uga hadlay siyaasadda difaaca qaranka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maxamed Guuleed Qadar ayaa gudoomiyay shirka golaha wasiirada oo lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka ay golaha yeesheen ayaa looga hadlay sharciga difaaca qaranka iyo siyaasadda daryeelka bulshada oo ay soo gudbiyeen wasaaradaha difaaca iyo shaqada shirka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan xaaladda amniga guud ee dalka howlgallada laamaha amniga ay ku baacsanayaan kooxaha nabadiidka ah iyo qorshaha dardargelinta sugidda amniga wasiiru dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa intii uu socday shirka waxa uu golaha warbixin ka siiyay socdaal ay magaalada Xudur ee gobolka Bakool ay ku tageen wafdi oo hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka oo isagu jiray xubno ka tirsan xukuumadda iyo xildhibaano ka socda labada gole gudoomiye Yariso ayaa u digay odayaasha daba carara dadka falal dambiyeedyada lagu soo qabto gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa uga digay odayaasha beelaha hormuudka u ah inay ka daba yimaadaan ama ay soo farageliyaan kiisaska dadka lagu soo eedeeyo falalka ammaan dari ee ka dhaca magaalada Muqdisho gudoomiye Yariso ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn ayna aqbali doonin in la soo farageliyo maxkamadaha iyo garsoorka isagoo hadalkiisa intaa ku daray in lagu soo wargeliyay cidii ama odaygii soo daba kaca ruux fal dambiyeed lagu soo eedeeyo waxa uu sheegay duqa Muqdisho in odaygii soo daba kaca uu xirmi doono maxkamadaha iyo garsoorka inaan la soo faragelin karin cid alla iyo cidii soo faragelisana aniga halay soo sheego odaygii ka daba yimaada waxaan u sheegaynaa isagana inuu xiran yahay kama daba imaan karo qof burcad marka hore ayaa la rabaa inaan ilmihiina cishataan una digtaan una sheegtaan nidaam dawladnimo waxaan ahayn nama deeqan ayuu yiri gudoomiye Yariso hadalkan ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ka sheegay goob lagu soo bandhigay kooxo burcad oo ay soo qabteen ciidamada ammaanka xilli ay dhac ka wadeen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho geesta kalena 15 muwaadin oo u dhashay dalka Kenya ayaa lagu adoonsadaa Soomaaliya dawladda Kenya ayaa sheegtay in 15 nin oo kaluumaysato Kenyana xoog lagu kaxeysay isla markaana u shaqeeyaan doon kaluumayso oo laga leeyahay Soomaaliya gudiga kaluumaysatada Kenya ayaa sheegay in 15 nin ee gacanta lagu dhigay si qasab ahna loogu shaqaaleysiiyay iyagoo aan la siinin wax lacag ah Beta Makena oo kamid ah gudi u dooda xuquuqda kaluumaysatada Kenya ayaa sheegay in kooxda doonta saaran ee Soomaalida ay hubeysan yihiin isla markaana sida adoonta oo kale ay ugu shaqeystaan kaluumaysatada Kenyaanka Masar Beti ayaa sheegay in shaqaalaha Kenyaanka ay ku jiraan halis loo baahan yahay in la soo badbaadiyo isagoo ugu baaqay dawladda Kenya inay qaado talaabo lagu badbaadinayo waxa uu intaasi ku daray in muwaadiniintan lagu shaqeysto saacado badan maalintii hadii ay diidaan loo adeegsado cabsi gelin maadaama dadka ku shaqeysta ay hubeysan yihiin ma uusan sheegin halka lagu hayo meesha laga qabsaday iyo waqtiga la qabsaday toona hase yeeshee waxa warbaahinta Kenya u xaqiijiyay dhacdadan
dhinaca kalena sirdoonka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay xubno Daacish oo qorshe halis ah ka maleegay magaalada Muqdisho. Ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Niisa ayaa gacanta ku soo dhigtay laba ruux oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab kuwaas oo doonayay inay dilal ka fuliyaan magaalada Muqdisho. Ciidamada Niisa oo howlgal gaar ah ka fuliyay duleedka magaalada Muqdisho ayaa u suurta gashay inay soo qabtaan xubno ka tirsan Daacish oo maleegay qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo lagu waxyeeleynayo shacabka sida uu sheegay taliyaha Niisa. Taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Niisa ayaa sheegay in howlgalkan uu ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Sidoo kale qoraal lagu daabacay Twitter-ka Niisa ayaa lagu sheegay in xubnahan la soo qabtay ay damacsanaayeen inay dilal u geystaan dad shacab ah. howlgal ay hay'adaha amniga ka fuliyeen banaanka Muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen laba dhagar qabo oo ka tirsan Al-Shabaab iyo hubkooda iyagoo maleegayay dilal lagu beegsanayo shacabka waxaana qayb ka ahaa laba kale oo shaqaale ka ah shirkad ganacsi ayaa lagu yiri war ka soo baxay Niisa. Taniya markii uu xilka agaasimo ku-xigeenka hay'adda Niisa uu la wareegay Fahad Yaasiin ayaa barta Twitter-ka ee hay'adda lagu soo bandhigay qoraalo xubno Al-Shabaab oo la soo qabtay iyadoo aan la socon wax cadeemo ah. ugu dambeyntiina Kenya ayaa arin halis ah oo ay Soomaaliya ku leedeen ka bilowday xuduudda muddo 48 saac gudahooda ayaa waxa xuduudda Soomaaliya ay la wadaagtay Kenya ku dhintay ugu yaraan 5 qof waxaana ku dhaawacmay 11 qof oo kale kuwaas oo dhamaantood shacab ah. dadkan ku dhintay miinooyinka dhulka la geliyay oo ku qarxa gaadiidka ay saarnaayeen waxaana ay u badnaayeen haween Soomaaliyeed ee ka ganacsada gudaha Kenya kuwaas oo degan gudaha Soomaaliya. haweenkan ayaa ah kuwa ka ganacsada caanaha iyo qoryaha la shito waxaana ay isaga gudbayeen Soomaalida waqooyi bari iyo Soomaalida gobolada Gedo iyo Jubbada Hoose. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in Kenya ay miinooyin badan ay ku aasay masaafo dheer oo isku xirta xuduudda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan gobolada Gedo iyo Jubbada Hoose. waxaa socda dadaalo dadka Soomaaliyeed loogu wargelinayo inaysan gaadiid ku marin xuduudda labada dal maadaama ay buuxaan miinooyin badan oo ay ku aaseen ciidamada Kenya. militariga Kenya ayaa sheegay in miinooyinkan ay isaga difaacisa Al-Shabaab ka soo gala gudaha dalkooda. Arintan ayaa loo arkay inay halis ku tahay nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo degan gudaha Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo Soomaalida degan gudaha dalka. Kenya oo Soomaali kula jirta muran dhanka badda ah ayaa maalmihii la soo dhaafay kordhisay tacadiyada iyo dhibaatada ay u geystaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkeeda iyo kuwa ka gudba xuduudda Soomaaliya ee gala gudaha dalkaasi Kenya. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay xogaha iyo waliba warbixinada muhiimka ah inuu halkan soo gelino. waana mahadsantihiin.